أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وعلى ذلك سبب لما شفتان بسوء ونكسن ونكسن قف كوتا كل صلوات برنامج كنا وذاقنا وحيد عي سينوحون وقفهمنه وحيابها ينقوها ليسن أما وحيد عيبا ساترع سؤال شيء هرت الله وحل سؤال اللي قد يوحك استوى للسميه cid kastaba hadashay soo dhammaatay hal su'aala bay ku xirantay sida muuqata Soomaalidu goormay heli kartaa siyaasi damiciisu ku jaango'an yahay sugidda danta guud ee dalkiisa waxaynu marka ugu horreysa eegaynaa qof dantiis ma dhisi karaa dal hadduu iswaafajiyo haa laakiin hadduusan iswaafajin wuxuu isu bedelayaa waxa loo yaqaano danayste ama khaa'imul waddan waana waxa maanta ina haysta oo dhammaanteen aynu la hag iyo hug leenahay naftuba inuu ka dhicilaa arrimahaana makeli baynu ku nahay maya dunidu maantaytu waxay maraysaa heer dalalkii waaweynaa ee soo jiray dimuqraadiyadda sheeganayay ay sideenoo kaleeto noqdaan warooro sharciyeysan oo ku sharciyeysan maskaxda dadka laakiin aan ka sharciyeysanayn fulinaynna wax sharci ah oo qoran cusbaynayna heer caalami dheh iyo heer istayd markaa meeshay joogaan ha ahaatee aan ka soo qaadnama yurub oo lagu daydo aan ka soo qaadno maraykanka oo kudaysho mudnaa kuna mudnaaday awoodday ku geengareeyeen siday rabtaba ha ahaatee dagaalkii labaad kadib xulufadii dhisantay xilligaas oo noqotay xulufo marba marka ka dambaysa wadaxaajood hoose ama soft power waxa loo yaqaano iyo hard powerka labadaba ku guulaystay caalamkana tusay indhe ka duwan kuwii dagaalada oo ay soo mareen oo iyagu wax ku noqdeen in wax lagu noqon karayo jabkii kadib Sovietkii uu ka soo horjeeday ama Bawariskii ka soo horjeeday nooc raba ha ahaadee islaam shuuciyad waxa rabaan ba ahaadee waxaa markaas wada la qaadsiiyey waxyaabihii dadka runtii lagu sasabayay oo madadaalada ahaa oo dad badan ay kaga dayanayeen gaar ahaan westiga wada loo yaqaan ayaguna waxay isku rogeen kambaniyo dadka ku khasba danahooda dalalkuna aysan jirinin dal ahaan u jirin haddaysan iyaga raacin dantooda lagana helin wax kasta oo bilowda meel bay ku dhammaadaan xilligan waxaynu soo gaarnay xilligii dhammaanshiyaha intaynaan marka taa iyada ah ku dheeraan dib baynu ka sii sharaxan doonnaa isla eegaynaa aynu dhegaysanno arrintan teenna u eg oo qaybtana ka ah oo Maraykanka iyo Yurub oo muddo dheer soo wada socday hulal ay iska samaysteen oo caalamka ay ku dhibaataynayeen waxna ku helayeen awoodana isticmaalayay intii muddo ah dagaalkii labaad kadib oo ay runtii afduubeen caalamka oo dhan dhaqaalihiisiina ay soos dhigeen iyo awooddiisiiba ayagoo isticmaalaya instituushinadii waxaan isweydiinaynaa ma la soo gaaray xilligii uu dumi lahaa aynu dhegaysanno. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
the retreat of Europe from some of its most fundamental values. This order is easy to disrupt, it's easy to destroy, but it's much harder to rebuild. So let us stick to these values, let us not reinvent them, but focus on strengthening their consistent application. Let me conclude, and this becomes difficult. Support of Europe. And this common plan, we have to discuss with Russians, and we will. And at the table, it's very important to hear America, Europe, Ukraine, and Russia. Yes. Can you accept any peace deal that is cut without Ukraine? No. That was from Meet the Press yesterday. He's not going to have much of a choice, is he? He's going to be irrelevant to it. He is already irrelevant to the agreement. The agreement will be, in principle, between the United States and Russia. And it has to be because it is to be not about Ukraine. Ultimately, it is about the big picture. It is about the security of Europe and the region, spheres of influence between the big states, if you like, China, Russia, and the United States. wardalkan in inta la daadiyo bari amaana la geeyaa la rabaaye tab iyo aniga iyo adiga iga leexa iyo adiga iga reexi fiiri joog dhaqanka meeshaas ka jira iyo fikirka dadka Soomaalida aad in uga hadla rabo inaan ka waaniyo rabo waxa waaye dhaqankaas meeluu dugsan yahay dalkaani 30 sano ee diktatoriyadda ay ka jirtay oo aniga aan ku soo barbaaray kuwa aan dhalan iyo inta ila jiilka ah iyo kuwa iga waaweyn aan ku soo barbaarnay iyo inta aan dhalnoon ku barbaarinay mushkilad weyn oo haysato waa nin qof dictator ah hadaad aragto maskaxiya cudur nooc oo qaban maskaxiya ma fiyo dawlad goboleedyada qaarkood nin inuu soo saar rabo dadka dooro lahay iyo nin asagu ku dooro inuu soo saarta rabo iyo balaayo dhama isugsan dalkan qatar uu ku sugan yahay dadkiisu waxaan rabnaa inay indhaha kor u qaadaan walaxan ahayn doorasho oo xal ama waxaad dhegaysateen dhammaan saddexdan labadan guruub oo kala baxay kala dareensanaya iyo madaxweyne xasan iyo gruubkiisaan cusub oo dastuurada wata waxay ku sheegayaan ay badbadasheen iyo wixii oo dhan iyo meesha la marayo waxay ka hadlayaan ciddii dictator ku yaqaaneen ayaa dhegaysateen iyo sideedaba meel kaliya inaan la joogaynin su-aasha meesha taallaa marka maxay noqonaysaa oo aynu ka jawaabayno isbeddelkan dhacay oo burburka keenaya ka agbeddelashadiisa maraykanku ku khasbanaaday oo aan runtii ka dhex arkayo inay yihiin dad aad iyo aad u taxadar badan oo marka wax yimaadaan shakhsiyaadka beddelaya ay ka soo dhex baxaan iyagoo qaadanaya wax la yaab leh oo wixii jiray oo dhan lagu tumanayo si loo gaaro wuxuun lagu survive garoobo maraykanku si cad bay u arkeen in xilligii gabagaba yahay inay hal mar dumaan iyo inay si tartiiba u soo degaan maaltirayaan waana midda sababaysa inay dagaaladay wadeen markay qiimeeyeen ku arkeen inay dedejinayso burburka embayarkooda waxaan leeyahay aragti fiican oo macno ku fadhida weeye waddada ku sii socdaan kolle khalaad badan waa sii gelayaan laakiin waa bilow waxaynu ka dhegaysanay lecturekaani ay leeyihiin cadow ka weyn ma jiro in dhexdeenna waxa ka jira oo xeerarkii iyo nidaamkii dimuqraadiyadda aan joogsanay laga booday oo ina waday layskama odhan dhammaantood way ka boodsanaayeen laakiin waa xilligii kala tagga iyo isla xisaabtanka iyo u soo noqoshada in caalamka cusub lagu beero sida brics oo kale oo aan la celin karaynin taa markaan waxaan ka leeyahay maraykanku guul bay ka gaareen si ugu guulaysan jireen badan dalahooda yurubiyaanku waxay inaan tuseen
meesha xil kale inaad ku soo dhacaysid haddaad cid un iska daba joogtid dalalka bulbulaha oo macnaha lahaan jirayna tusaalay horteenna ku tahay yurub oo caalamku ku dayanayay halkaayna soo gaadhay madaxweyne xasan waxaan ka arkaa dictatorka uu ka hadlayo oo cudurka qaba u malaynmayo kole isagu inuu isula jeedo laakiin dadku ma u arki karayaan sheegaha isu sheegay kuwan sheegin inuu yahay dhammaan maxaa idinku muuqataa arrimahan oo aad kala soo dhexbaxdeen xaggee loo geedin yahay seese lagu gaari karayaa soomaali ay ku heli karaysaa siyaasi ka madax bannaan dantiisa keliya oo u madax bannaan mid midaynaysa tiisa iyo tan dalkiisa oo soomaaliyeed waa inuu caldaadsado mar kale idin leh haydin macaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu